Assalaamu calaykum asxaabteeda soo dhawaada. Maanta waxay idiin wadaa qisadan waxay ku bilaabanaysaa waxaa jiray nin oday ah oo deganaa magaalo. Ninka waxaa ku cuslaatay xaaladii uu ku noolaa, wuxuuna galay deymo fara badan si uu u maareeyo noloshiisa caadiga ah. Waxaa lagu yeeshay lacag tiro badan, heer lacagta lagu yeeshay ee gaartay 100 diinaar. Wuxuu awoodi waayay in uu bixiyo lacagta lagu yeeshay, waxaana taagnaa duruufihii uu u qaatay lacagaha deymaha ah. Maalin ayuu baxay, wuxuuna u tagay nin lacag lahaa oo taajir ahaa. Wuxuu dhahay, bal lacag i deymi. Waxayna ku ballameen in uu muddo ku soo celiyo lacagta. Lacagtii ayuu qaatay, wuxuuna isaga guday deymihii hore. Marka waxay ahayd deen ku gud. Muddo kadib waxaa la gaaray xilligii isaga iyo taajirka ay ballameen. Taajirkii ayaa dhahay, muddadii waa la gaaray ee lacagtaydii isii. Laakiin isaga waxba ma hayn. Wuxuu ka codsaday in uu waqtiga u dheereeyo. Laakiin ninkii taajirka ahaa wuxuu go'aansaday in uu dacweeyo. Wuxuuna ku dacweeyay maxkamadda magaalada. Kadib maxkamaddii ayaa ninkii deynta lagu lahaa u dirtay fariin. Markii uu imaaday maxkamadda, waxay amartay in uu lacagta iska bixiyo. Isagana wuxuu yiri, aniga waxba ma hayo. Haddii aan haysto lacag aan bixiyo, maxkamadda maba imaan lahayn. Intaas markuu dhahay, maxkamadda waxay amartay in la xiro oo xabsiga la dhigo, maadaama uu lacagta iska bixin waaye. Markay maxkamadda go'aankaas gaartay xariga ah, ninkii deynta lagu lahaa wuxuu yiri, qaadiyo waxaan rabaa in aan u tago reerkayga, una sheega in la i xiraayo ee i fasax. Qaadigu wuxuu dhahay, yaa ku damaanad qaadaya, yacni yaa ku damaananayo. Wuxuu dhahay, rasuulka alle salawaatullaahi calayhi wasalaam ayaa iga damaanad ah. Haddaan soo noqon waayo adduun iyo aakhiraba kama mid ihi ummadda Nabi Muxamed calayhi salaatu wasalaam. Qaadigu wuxuu ahaa nin wanaagsan. Wuxuu dhahay, bax oo aad reerkaaga, kadibna soo noqo. Oo wuu fasaxay. Markuu noqday uu gurigiisii tagay ninkii deynta lagu lahaa, wuxuu arrinka uga waramay xaaskiisa, isagoo dhahay, arrinka sidaas ayuu u dhacay. Waxaana laygu xukumay xabsi. Si aan idiin soo booqdana, waxaa damaanad u dhigtay Nabi Muxamed salawaatullaahi calayhi wasalaam. Xaaskiisa arrinka way la yaabtay. Waxayna dhahday, haddaba haddii ay sidaas tahay oo nabiga salawaatullaahi calayhi wasalaam dartiis fursadan yar ku heshay, aan ku salina nabiga salawaatullaahi calayhi wasalaam. Waxaa laga yaabaa in Ilaahay faraj khayr qaba inoo furo. Waxay bilaabeen inay ku saliyaan nabiga salawaatullaahi calayhi wasalaam ilaa ay ku hurdeen. Markay hurdeen kadib, ninkii deynta lagu lahaa wuxuu riyo ku arkay nabiga salawaatullaahi calayhi wasalaam. Nabigana salawaatullaahi calayhi wasalaam riyadu wuxuu ku dhahay, subaxdii waaga markuu bariyo waxaad u tagtaa gudoomiyaha magaalada, salaanna iga gaarsii. Waxaad ku dhahdaa deynta iga bixi. Hadduu ku dhaho, maxaa caddeyn ah oo kugu aaminaa inaad nabiga riyo ku aragtay? Waxaad dhahdaa, marka koowaad gudoomiyaha habeen kasto 1000 mar ayaad nabiga ku salisaa salawaatullaahi calayhi wasalaam. Midda labaad, haddaad ka shakiso in aad tirada qaladay, waad ku soo celcelisaa ilaa aad tirada buuxiso. Ninkii wuu baraarugay subaxdii, isla markiiba wuu baxay, wuxuuna u tagay gudoomiyaha magaalada. Wuxuu ku dhahay, nabiga salawaatullaahi calayhi wasalaam ayaa ku soo salaamayay. Wuxuuna dhahay, u tag oo deynta ha kaa bixiyo. Gudoomiyaha wuxuu dhahay, waa meeqa deynta? Ninkii wuxuu dhahay, waa 500 oo diinaar. Gudoomiyaha wuxuu dhahay, maxaa caddeyn ah in aad run sheegaysid? Ninkii wuxuu dhahay, 2 arrimood ayaa caddeyn u ah. 1, adiga habeen kasta 1000 jeer ayaad nabiga ku salisaa salawaatullaahi calayhi wasalaam. Gudoomiyaha wuxuu dhahay, waa run. Wuxuu dhahay, waxay tahay tan kale. Tan labaad waa in aad habeen hore qaladay tirada oo aad ku celcelisay. Laakiin nabiga salawaatullaahi calayhi wasalaam wuxuu dhahay, ugu bishaaree tiradii iyadoo kaamil ah ayay soo gaartay. Gudoomiyuhu wuu ishayn kari waayay. Kadibna wuxuu bilaabay oohin, isagoo leh, run ayaad sheegtay, Allah ka raali noqda. Wuxuu soo siiyay lacagtii deynta ahayd ee lagu lahaa ninkii deynta lagu lahaa. Wuxuu soo aaday dhankii maxkamadda.
wuu soo galay. waxaa ka hor yimid ninkii lacagta ku lahaa, wuxuuna dhahay waan ku cafiyey sababtoo ah nabiga salawaatullaahi calayhi wasalaam ayaan xalariyo ku arkay, wuxuuna igu yidhi ninkaas cafi oo ka furo deynta ha ku furata maalinta qiyaamaha maxkamadda ayaa la soo galay. ninkii deynta lagu lahaa ayaa istaagay, wuxuu dhahay qaadiyow ninka waa cafiyey, lacagtaa ku lahaana kama rabo, waxa aan gacanta ku hayana waa kiish ay ku jirto 500 oo diinaar oo aan isaga ugu talagalay. xala ayaan rasuulka salawaatullaahi calayhi wasalaam wuxuu igu dhahay ninkaas cafi oo ka fura deynta ha ku furatee maalinta qiyaamaha. ninkii miskiinka ahaa ee deynta dilootay maxkamadda ayuu ka soo baxay isagoo wato lacago fara badan. midii uu ka soo qaatay gudoomiyaha uu rabay in uu deynta isaga bixiyo, iyo isla gudoomiyaha miduu masaariif ahaanta u siiyey, iyo lacagtii uu siiyey ninkii hore deynta ugu lahaa ee uu cafiyey. wuxuuna heerkaas ku gaaray in uu ka xoroobo deymihii lagu lahaa, isagana lacag ku sii helay. salliga suubanaha salawaatullaahi calayhi wasalaam. asxaabteena aan ku salina suubanaha salawaatullaahi calayhi wasalaam, waxaan ka codsanayaa inaad share gareysaan videogan, asxaabtiina la wadaagtaan, subscribe saartaan, like saartaan. khayr aan isku ognahay. bye bye.